السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناكسن مدن يال يمروجين meel kastoo deegaanka dalka iyo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga ee STV xaruntiisa magaalada Jijjiga warkana waxa la socodsiin doona anigoo Cabdi Maxamed Cabdi qodobada aad warka ku maqli doontaana waxa kamid ah madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa ku booriyay macallimiinta inay tusaale wanaagsan u noqdaan ardayda ay wax barayaan iyo bulshada si looga daydo akhlaaqda wanaagsan iyo wadaniyada isla markaana loo gaadho hadafka la beegsanayo ee ah u bislaynta ardayda hal-abuurnimada iyo cilmi wax ka bedela nolosha ummadda kuliyadda macallimiinta ee Dr. Cabdi Majiid ayaa waxa ka qalin jabisay ku dhawaad 950 arday oo isugu jira diploma iyo certificate mas'uuliyiinta gobolka Nogob iyo kuwa degmada Ceelweyne ayaa kormeer ku soo maray mashaariic horumarineed ee laga fuliyay degmada Ceelweyne ee xarunta gobolka Nogob kuliyadda Afrika Beeza ee dalka ayaa waxa ka qalin jabiyay in ka badan 300 oo arday daawadayaal qodobadaasi ayaa qodobada warka tan u door karoon qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda u diyaar garooba waagaag daawadayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa ku booriyay macallimiinta inay tusaale wanaagsan u noqdaan ardayda ay wax barayaan iyo bulshada si looga daydo akhlaaqda wanaagsan iyo wadaniyada isla markaana loo gaadho hadafka la eegsanayo ee ah u bislaynta ardayda hal-abuurnimada iyo cilmi wax ka bedela nolosha ummadda kuliyadda macallimiinta ee Dr. Cabdi Majiid ayaa waxa ka qalin jabiyay ku dhawaad 950 arday oo isugu jira diploma iyo certificate faahfaahinta warkaasna waxa inoo haya wariye Xasan Cige munaasabadan qalin jabinta oo ka dhacday hoolka shirarka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweyne ku-xigeenka wasiirka waxbarashada mudane Mawlid Hayir Xasan golaha wasiirada maarayaha kuliyadda Dr. Cabdi Majiid ardayda qalin jabinaysa iyo waalidiintooda madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo marti sharaf ku ah munaasabadan qalin jabinta ayaa bogaadinaya hambalyo u jeediyay macallimiinta qalin jabinaysa ee muddada soo waday waxbarashadaasi ay qayb uga noqdaan dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka soona saaran mutacallimiin heelkalkaala u noqda isbeddelka xawliga ku socday deegaanka waxa mar labaad iyo mar saddexaad farxad ii ah inaan maanta halkan kala soo qayb galo xafladan aadka u quruxda badan ee taariikhiga isla markaana ay ku qalin jabinayaan barayaal 949 bare oo wax ka bedeli doona geedi socodka iyo qorshahan hiigsanayna ee kamera dhalinta ama la dagaalanka saboolnimada isla markaana waxa weeyaan kaalin la xal ka qaadan doona sidii aanu heli lahayn cudud wax barata oo wax ku soo kordhisa geedi socodka ballaaran ee aan ku hiigsanayno horumar waara oo soo noqosho lahayn madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa hoosta ka xariiqeen macallimiinta qalin jabisa uu saaran yahay xil iyo waajibaad culus oo ku aadan tayeynta waxbarashada iyadoo loo baahan yahay in la raaco tixraacyada iyo nidaamyada kala duwan ee xukuumaddu ugu tala gashay in lagu xaqiijiyo tayeynta waxbarashada maanta wada qalin jabiseen balse laakiin xil iyo waajibaad ayaad qaadeen bay ka dhigan tahay xil iyo waajibaadkaas aad qaadeen inay sidii loogu tala galay adiga soo baxdaan ayaa muhiim ah waxa maanta aan isfareynana ugu muhiimsan waxbaad soo barateen inaad wax bartaana waa idinka sugayaa balse laakiin waxbarashada markii laga hadlayo tiirar bay leedahay tiirarkeeda waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa laba qodob weeye labada qodob midi waxa weeyaan hard programka dhismihii haduu noqdo soft programkuna waa quality-ga tayeynta waxbarashada in waxbarashada la tayeeyo in waxa weeyaan higsiga waxbarashada iyo yoolka la dhigtay in la gaadho waa mid maxaan ku raaa marka kaalin lixaad aad ka qaadanaysaan idinku madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa uu cadeeyay xukuumadda ay xoogga saarayso taabagelinta wadiiqooyinka lagu xaqiijinayo tayeynta waxbarashada oo ay ka mid yihiin saamiga ardayda iyo baraha la isku dheeli jiro oo halkii macallin uu 50 arday wax bari karo xusidna ay mudan tahay 5 sano ka hor oo halkii macallin wax bari jiray 160 arday ka badan hadda dawladdu waxa ka jawaabaysaa nidaamkii software-ka ee quality-ga waxbarashada oo ah macallinka iyo in la isku beego macalinka iyo ardayga oo aan helo macallimiin badan
oo macallinku uu ugu badnaan 50 arday wax u dhigayo waa ogsoonahay macallinkeenu hadda ka hor ama 5 sano ka hor halka macallin 160 170 200 arday ayuu mataqaanaa mararka qaar kood wax u dhigayay which means waxbarashadaas aflax ma yeelanayso jaantooda iyo shanqadhooda 200 arday meel la soo keenay ayaan hadalka gaarsiinayn adduunka meesha ay laata ka yahay inaga laakiin maanta 54 iyo inta akabaabigaasaan maraynaa marka waxa weeyaan dhaqaalaha markii uu saamaxana hoos baa loo dhigay oo waxa weeyaan klaaskiina waa la badin macallinkiina waa la badin madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo macallimiinta qalan jabisay la dardaarmay ayaa u sheegay in dadaalada ay dawladdu ku horumarinayso waxbarashada ayna muuqan karin haddii uuna baruhu lahayn dareen macallinimo oo wanaagsan oo mas'uuliyadda ka saaran soo saaridda arday wanaagsan u gabo in xukuumadda iyo shacabkuna ay la xisaabtamayaan oo ayna ka seexan doonin dawladdii wixii la jira iyo nidaamkii waxa weeye dawladnimo lahayn haday buuxiso laakiin de waxa weeye cidii wax fulinaysay ay xumaato waxa weeyaan kaalintii dawladdu lama muuqanayso laakiin iyadoo taa lagu xisaabtamayo dawladdu ay taa maanta sababta halkan uga qalin jabinaysan ay tahay haddana waxa weeyaan aad googooyso oo klaaska xilligii loogu talagalay ma weydo waxa ka dhigan tahay mas'uuliyadii ku saarayna ma ka soo bixin ummadiina waa lugeysay ayay ka dhigan tahay waana mid maxaan ku rahay xukuumadana kala xisaabtami shacabkuna kala xisaabtami ilaahayna kala xisaabtami meel la kaga bixmaysid bay ka dhigan tahay mas'uuliyadda qaadana ilaalisan baa loo baahan yahay kaliya qalin jabin ma aha oo waxa weeye maxaan ku rahay qalin jabinimada waa inaad waqtigiina aad ilaalisaan oo mutaysateen in maxaan ku rahay thank you leeyahay waxa garab soconaysa in haddana maxaan ku raayay waajibaadkiina xilkiina idinkuna qaataan anaguna aan kula dardaarmo waxaan aaminsanahay inaad ka soo bixi doontaan hadii leeyahay laakiin macallin kasta ama bara kasta ha ogaado waxa weeye maxaan ku raay dabeecadiisu waxay saameyn ku leedahay bulshada xumaan iyo wanaagba madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mawlid Hayar ayaa xukuumadda iyo xisbiga uga mahad celiyay heerka ay soo gaarsiiyeen waxbarashada oo ay tirada kulliyadaha kor loo qaaday aqoonyahanka ka soo baxayana sanadba sanadka ka dambeeya si kordhan sidoo kalena xukuumadda ay ka go'an tahay in ficil loo rogo siyaasadaha lagu horumarinayo waxbarashada xafladan qalin jabinta awgeed waxaan jecelahay halkan inaan uga mahadnaqo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo halkan maanta ay marayso waxbarashada guud ahaan gaar ahaan kulliyadaha waxbarashadu dadaal dheeraada galiyay soona gaarsiiyay halka maanta aan marayno iyo xirfadlayaal tayo leh inay noo soo saaraan marka xiga waxaan halkan uga mahad celinayaa sidoo kale kulliyadda iyo maamulkeega oo dadaal dheeraada sameeyay kuna dadaalay inay barooyaal aqoon iyo tayo sare leh ay soo saaraan sida la wada ogsoon yahay dawladda waxa ka go'an in la xaqiijiyo hirgelinta siyaasadda waxbarashada oo ay ka mid tahay kobcinta iyo kor u qaadida xirfadda barayaasha maadaama ay barayaashu yihiin warshada soo saarta dhammaan aqoonyahanka kala duwan ee aynu leenahay ha noqoto dhaqaatiir injineero warshada koowaad ee soo saarta waa warshada waxbarashada maariyaha kulliyadda barayaasha Dr. Cabdimajiid Mudane Maxamuud Axmed Nuur ayaa waxa uu sheegay in 949 ka bare ee qalin jabiya isugu jiraan 764 oo lab ah 185 dhidiga oo barnaamijyada joogtada iyo xagaaga oo heerka diblomaha ka qalin jabiyay iyo in markii ugu horeysay ay kulliyaddu wax bartay barayaal 10+1 ah oo loogu talagalay dugsiyada barbaarinta carruurta mudanayaal iyo marwooyin anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan kulliyadda waxaa sharaf ii ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladda barayaasha ee maanta ay ka qalin jabinayaan kulliyadda tababarka macallimiinta Dr. Cabdimajiid Xuseen oo ah dufcadii 20aad oo dhamaystay waxbarashada heer dibloma iyo heer certificate isla markaana ay tiradu dhan tahay maanta 949 arday oo ay yihiin lab 764 dhadigna yihiin 185 kuwaas oo ku kala qalin jabiyay barnaamijyada kala duwan ee waxbarashada ama kulliyaddu ay bixiso inta kadib ayaa waxa halka lagu dhaariyay 949 ka bare ee kulliyadda ka qalin jabiyay ardayda ugu dhibcaha sarreysay ayaa waxa halka abaalmarino kala duwan ku gudoonsiyay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada mudane Mawlid Hayar iyo maarayaha kulliyadda macallimiinta Dr. Cabdimajiid Xuseen macallimiinta ka qalin jabiyay dafcadii 20aad ee kulliyadda Dr. Cabdimajiid ayaa ballan qaaday inay dardaaranka xukuumadda sideeda u dhaqan galinayaan si ay u soo saaraan arday hal abuur iyo dhaqan wanaagsan leh aan ku faraxsan yahay kaalintii aan maanta soo galay iyo macallimiintii kaalinta mataqaanaa soo hogaamisay ee kaalinta maanta mataqaanaa garabkeena istaagtay iyo mataqaanaa kuwii kale agtooda baaha farxad ban mataqaanaa ayaan u halbaynayaa waalideentayda heerkan soo gaarsiiyay
hadda waxaan ballan qaadayaa aniga oo soo qalin jebiyey dadka iyo shacabkayga waxaan ballan qaadayaa inaan waxbarashadan soo dhigtay aad saan soo bartay inaan soo dhigan waan ballan qaadayaa qalin jebinta maanta meeshaan isugu imanay aad baan ugu faraxsanahay kaalintaan qaadanay aad baan ugu faraxsanahay marka maxay ahayday kulli dardaarankii la siiyay waana qaadaynaa ballanta doorkeygana waan ka soo dhalaalaynaa wixiina looga baahan yahay anagu waan qabanaynaa xagayga dadkii ama bulshadii iyo ardaydan u tageynina sidii ay maxay ahayday bulsho aqoon iyo maxay ahayday ka shaqaysa nabadgelyada sidii u noqon lahayd ayaan maxay ahayday ballan qaadaynaa waxa mahad iska leh ilaahay waxaana ku xiga waalidiintay magacayga saddexan waxaa la dhahaa Faadma Cabdirasaaq Maxamed waxaan dhiganayay diplom summer ah department English and managerkiisu yahay civic waxaan ku xijiyeynayaa in aan ballan qaado in aan meesha la ii diro ama tagayo in aan ardayda si fiican wax u baro ee noqdaan arday aniga iga fiican oo meel sare wada gaarta anuu imaaday gabadhan eedada oo ahay farxadeeda waxaan ku faraxsanahay dadaalka ay muujisay iyo maaragtay tii sheeg sida fiican oo wax u baratay ma sha Allah adinkana waan idin hambalyeynaya dawladda iyo xisbiga iyo dhammaan waan u hambalyeynaya ardayda qalin jabisay halka waxaan ka salaamayaa dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta isugu timaada iyo ardayda dhammaan ardayda qalin jabinaysa waxaan ballan qaadayaa inaan ardayda dalkayga iyo dadkayga inaan wax barayo mas-uuliyiinta gobolka Nogob iyo kuwa degmada Ceelweyne ayaa kormeer ku soo maray mashaariicaha horumarineed ee laga fuliyay degmada Ceelweyne ee xarunta gobolka Nogob. Faafahinta warkaasna waxaa inoo haya wariyaha alaab inooga soo warrama gobolka Nogob Jilaani Cabdinuur. gudoomiyaha gobolka Nogob iyo maamulka degmada Ceelweyne ayaa kormeer ku soo sameeyay mashaariicii 2008 laga fuliyay xarunta maamulka gobolka Nogob ee degmada Ceelweyne mashaariicaha oo isugu jira xarunta caafimaadka iyo dugsi hoose dhexe isla markaana uu fuliyay mashruuca BCDB-da waaxdiisa ka howlgasha gobolka Nogob gaar ahaan degmada Ceelweyne mashaariicahan oo loo fuliyay sidii loogu talagalay ayaa waxa ugu horeyntii noogu warbixiyay gudoomiyaha gobolka Nogob Mudane Xaaji Madoobe Macalin Ibraahim isla markaana sheegay in looga faa'iideysta sidii loogu talagalay mashaariicahan boqoshaan soo marnay health centerka degmada Ceelweyne health centerka waxa loogu talagalay inuu ka fargareeyo caafimaadkooda dad gaar ah iyo 25,000 waa ilaahay xamdigii waxqabadka xukuumadda ama xisbigeena ayay ka mid tahay sidoo kale isna waxaan nooga warbixiyay ku-siisimaha gudoomiyaha degmada Ceelweyne Mudane Asad Maxamed Ismaaciil isaga oo sheegay in aad loogu baahnaa mashaariicahan ay dawladdu ka dhistay degmada Ceelweyne dhismooyinka heer deegaan laga fulinayo weeyaan dhismahan ayuu ka mid yahay haddana waxaanu soo booqan doonaa ayagana dhismooyinka kale ee ka socdo degmada Ceelweyne ee gobolka Nogob oo iskuuladu ka mid yihiin iyo caafimaadyo kale oo soo booqanayna insha Allah hadii la yiraahdo marka waqtigan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waqtiga iyo ay nasiyeen iyo booqashadoodaba lama mashaariicahan oo ah mashaariicii la dhisay 2008 ayaa loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan bulshada ku dhaqan degmada Ceelweyne ee gobolkaasi Nogob Jilaani Cabdinuur telefishinka caalamiga ESTV xarunta gobolka Nogob degmada Ceelweyne shirkii unuga asaasiga iyo unuga hoosaadyada xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee shaqaalaha degmada Galaadi ayaa ka qabsoomay degmadaasi Galaadi faafahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Axmed Nuur Cabdiwali shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha unug asaasiga degmada Galaadi ayaa ahmiyadda shirkani u ahaa dardargelinta qorshayaasha horumarineed ee sanadani 2009 lagu hirgelinayo shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha unug asaasiga degmada Galaadi ayaa qoritaanka shirkani ka hadlay gudoomiyaha gobolka Doolo Mudane Maxamuud Cali Axmed waxaan rabnaa inaan kaga wada hadalno qorshihii la soo dhaadhiciyay ee 2009 ee xukuumaddu soo dhaadhicisay xafiiska xisbiga soo dhaadhiciyay in bal nidaamkeennii geedi socodkeennii aan hore u soo maray 2008 iyo kan 2009 inaan eegno waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo 2008 kolkaan eegna qaybaheennii jilicda sanaa qaybihii adkaawaanaysanaa qaybaheena jilicsan khibradii aan ka helay 2008 2009 inaan inihii ka dhinaa aan bixino
sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya ee gobolka Doolo mudane Jaabir Shukri iyo kusimaha gudoomiyaha degmada Galaadi mudane Muxyidiin Maxamuud Sulub oo sheegay inay hirgelinayaan qorshayaasha 2009 ee uu xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya ku horumarinayo bulshada deegaanka. haddii aan soo qaadano sanadkii hore 2008 unuga asaasigu iyo unuga saadka degmada Galaadi wax qabad badan bisameeyay maxaan rabnaa iminkana 2009 in dadaal dheeraad la sii sameeyo unuga hoosaadiyada iyo unuga asaasiyada xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya ee degmada Galaadi in aad sii xoojisaan shaqooyinka aynu horey u haynay horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban shaqooyinka inaad sii xoojisaan laba jibaartaan oo saddex jibaartaan. qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay shirkan ayaa cadeeyay inay dardargelinayaan howlaha shaqo ee loo idmaday sina laba jibaarayaan shaqooyinkii hadda ka hor u hayeen bulshada deegaanka. xubnahan xisbiga ahi waxay khibrad u leeyihiin hababka fulinta qorshayaasha iyo hanaanka xisbiga waan aaminsanahay inaanu natiijo ka keenayno qorshayaasha 2009 ee dhanka xisbiga horumarka iyo nabadgelyada. Axmed Nuur Cabduuli TV degmada Galaadi. kulan lagu qiimeynayay geed socodka shaqo ee unuga asaasiga iyo unuga hoosaadyada xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee degmada Hudad ayaa ka qabsoomay degmadaasi Hudad. faahfaahinta warkaasna waxa inoo haya wariye Bashiir Cabbaas. kulan uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Daawo mudane Maxamed Kaahin Xoosh ayaa ka dhacay degmada Hudate ee ka tirsan gobolkani Daawo iyadoo ay ku wehelinayeen maamulka degmada Hudate oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Hudate mudane Axmed Ibraahim Xuseen iyo dhammaan unuga asaasiyada degmada Hudate. haddaba kulankan ayaa ku saabsanaa qiimeyntii waxqabadka unuga asaasiyada sanadkii 2008 iyo ka doodida u diyaargarowga qorshayaasha sanada 2008 looga midho dhalin lahaa xubno leh ruux isbinimo iyo aragti shacab lehna karti firfircoon ku dhaahan tahay. haddaba iyadoo la qiimeynayay dhankii jilicda sanaa ayaa la isla qaatay sidii looga midho dhalin lahaa dadaalada ballaaran ee laga wada guud ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee loogu jiro waxqabadka ka midho dhalinta sanada 2009. haddaba iyadoo guud ahaanba unuga asaasiyada ay ku hawlan yihiin sidii looga midho dhalin lahaa horumarka dhinacyo badanaha ka hana qaaday guud ahaanba deegaanka ayna yeeshaan aragti shacab ayaa ballan qaaday in horumarka ka socda deegaanka ay ka qayb qaadan doonaan. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Daawo mudane Maxamed Kaahin Xoosh wuxuuna sheegay inuu shirku ku saabsan yahay dardargelinta horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka hana qaaday guud ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada Hudate. sidoo kalena waxaa isna ka hadlay gudoomiyaha degmada Hudate mudane Axmed Ibraahim Xuseen wuxuuna sheegay unuga asaasiyada ay ku hawlan yihiin sidii looga midho dhalin lahaa horumarka dhinacyo badanaha ka hana qaaday guud ahaanba deegaanka. haddaba ugu dambeyntii shirkani ayaa waxaa la isla qaatay sidii looga midho dhalin lahaa amaba looga qayb qaadan lahaa horumarada dhinacyo badanaha ah ee ka socda guud ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Bashiir Cabbaas, telefishinka caalamka TV degmada Hudad. kulan loogu diyaar garoobayay dardargelinta qorshayaasha horumarineed ee 2009 ayaa ka qabsoomay degmada Goday ee gobolka Shabeelle. faahfaahinta warkaasna waxa inoo haya wariye Faarax Bade. shirkan oo ah mid dhammaan ay ka soo qayb galeen shaqaalaha xafiisyada kala duwan ee degmada Goday iyo kabineetka maamulka degmada Goday ayaa waxay ujeedadiisu ahayd u diyaar garowga fulinta qorshayaasha horumarineed ee sanadka 2009 iyo sidoo kale sixidda goldololooyinkii la soo dirsay howlaha shaqada ee sanadka 2008 ayaa waxa uu ka qabsamay magaalada Goday. shirkan oo ay hogaaminayeen madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee gobolka Shabeelle iyo gudoomiyaha degmada Goday ayaa waxa kale oo lagu qiimeeyay unuga asaasiga xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee shaqaalaha xafiisyada maamulka gobolka Shabeelle iyo kuwa degmada Goday. waxaana shirkan furay madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee gobolka Shabeelle oo shaqaalaha u sheegay ujeedada shirkan isla markaana shaqaalaha ku booriyay inay noqdaan shaqaale si ka go'naansho leh ugu adeega bulshada iyaga oo ka duulaya sixitaanka goobaha caqabaduhu ka jireen si qof kasta meesha uu joogo ugu helo adeegyada aasaasiga ah. shaqaalahan meeshan ku dhan waa shaqaalihii degmada Goday iyo kuwii gobolka. ujeedada shirka maanta aan halkan u fadhinana annaga oo 2008 qorshihii la soo dhaafay wixii galduleelo ah ay lahaayeen shaqooyinka isku soo qiimeynay kabineetka shaqaalaha markaas wixii galduleelo ahaa
sidaan u sixi lahayn. waxaa isna kulankan ka hadlay gudoomiyaha degmada Goday oo sheegay in shaqaalaha iyo kabineetka degmada Goday looga baahan yahay inay noqdaan kuwa bulshada ay u adeegayaan gaarsiiye adeeg hufan oo tayo leh iyaga oo si gaar ah diiradda u saaraya meelaha goldololooyinka ay ka jiraan. ujeedada shirkan u qaban waxa weeyaan daliilihii 2008 ka jiray shaqooyinkan soo hanay kulli daliilihii ama meelihii daldaloolada ka jireen in la soo dhigo oo xubin kasta oo kabinadii xafiis kasta u baalbeedka u fadhiya in la soo dhigo oo ka bacdi dalilaha jiray si loo saxo ayna dalil inagu soo noqon sanadka aan galanay 2009ka ayaan shirkan maanta isku nimid weeyaan dalilaha markaa jiray haday tahay dhanka caafimaadka tahay haday dhankii biyaha tahay dalilii meelaha daldalool ka jiraan totally in dib laan ugu soo noqon baa mid laga maarmaano maanta xagan shirkan ku qiimeeyna hoos aan si qoto dheer aan hoos galna weyn dhankoodana shaqaalihii ka soo qayb galay kulankan ayaa ballan qaaday inay si aan hagarasho lahayn ugu adeegayaan bulshada sidaas awgeedna ay meel kasta bulshada ugu geynayaan adeegyada ay u baahan yihiin isla markaana ay hirgelinayaan yoolasha iyo himilooyinka xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida iyo Itoobiya ee ah in bulshada deegaanka laga dhigo bulsho isku filaata waxaan markaa anagu shaqaalahan iyo mas'uuliyadan ku ballan qaadaynaa daliilihii jiray 2008 inayna ka muuqan 2009 hadii la yiraahdo isla markaana si ka go'naanshiya daacadnimo aan bulshadana ugu adeegno waxaan naga go'an oo aan dhammaan shaqaalaha magacayga magaca shaqaalaha baan ku hadlaya aan ballan qaadaynaa inaanu isbedel muuqda ka keeni doono annagoo raacayno dhinaca nooga baxan jooyinka xisbigeena farax bade telefishinka caalamiga ah ee ESTV degmada Goday guddiga boordiga ee xarunta caafimaadka ee degmada Charati ayaa yeeshay kulan lagu qiimeynayay adeeg bixinta xarunta caafimaadka ee degmadaasi Charati faafahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Lumaan Cade guddiga boordiga ee xarunta caafimaadka ee degmadaasi Charati ee gobolkaasi Afdheer ayaa yeeshay kulan ay ku qiimeynayeen waxqabadka xarunta caafimaadka ee degmadaasi Charati kulankani oo ah mid ay ka soo qayb galeen xubnaha boordiga ee xarunta caafimaadka ee degmadaasi waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha boordiga ee xarunta caafimaadka ee degmadaasi Charati ahna gudoomiyaha degmada Charati mudane Kifaa Cabdullaahi Macalin kaasi oo halkaasi ka soo jeediyay ajadayaasha kani looga hadlayo takale qaybaha wacdigelinta waa sidee haday tahay 16 xidhmo in la barto waa sidee waxyaabahan isku qiimeynayna ayay kamid tahay wacdigelinta oo 16 xidhmo barashadeedii talaalkii nadaafadii see weeyaan iyaduna macnaha see shaqeedo tahay waxay noqonaysaa mid kale qodobka kale isku qiimeyn doono waaxaha kala duwan haday tahay bukaan jiifka ama bukaan socodka ama outpatientiga ama inpatientigu noocay u shaqeeyaan waxaa kaloona dhankiisa ka hadlay madaxa xarunta caafimaadka ee degmadaasi Charati mudane Cabdi Iraade kaasi oo soo bandhigay waxqabadka xarunta caafimaadka isla markaana ku aadan bishii aanu soo dhaafnay guddiga boordiga ee xarunta caafimaadka ee degmadaasi Charati ayaa yeeshay bishiiba hal mar kulan ay ku qiimeeyaan waxqabadka xarunta caafimaadka si ay iskaga saxaan gaababka ka jira shaqada ay bulshada ay u hayaan Lumaan Cade Axmed telefishinka caalamiga ah ee ESTV degmada Charati ee gobolkaasi Afdheer orodka xulka xulashada orodyahanada deegaanka ee 5 kiiloomitir ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga faafahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Maxamed Xasan jihooyinka iyo qorshayaasha horumarineed ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadihii ugu dambeysay ee culayska badan saartay ayaa waxaa ka mid ah isboortiga deegaanka iyadoo laga soo hooyay guulo fiican kadib markii dhalinyarta laga qayb galiyay tartamo kala duwan oo dhanka ciyaaraha isboortiga ah waxaa magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka qabsoomay tartanka orodka 5 kiiloomitir oo ah orodka xulka xulashada orodyahanada deegaanka oo ay ujeedadiisu tahay isdhaxgalka dhalinyarada iyo in la soo saaro orodyahanada deegaanka tartankan oo ay ka soo qayb galeen 100 orodyahan oo ka kala socda xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa ay tartankooda ku qaateen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Jigjiga gabagabadii tartankan ayaa waxa warbixin laga siiyay orodyahan Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo ah orodyahan u dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u orda dalka Sweden isla markaana ka mid ah qabanqaabiyaasha tartanka maanta waxaan oo qabsoomay maamulka magaalada orodkii u horeeyay aan xulka xulashada deegaanka ugu magac darnay halkaas oo maanta 20 qabale maanta maamulka magaalada ay ordeen waxaan ugu xigay maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo Qoraxay iyo Goday saasan u socon doonaa hadii la yiraahdo iminkana waxa xulkii aan ka qabsanaynay maamulka magaalada Jigjiga saasan ku soo gabagabeynay waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay qaar ka mid ah
mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay tartankan iyo xubnihii ka qayb qaatay tartanka 5 kilomitir saaka waxaan halkan isugu nimidnay orodkii caadiga ahaa ee xulashada guud ee maxaan ku dhahay dadkii tartanka orodka uga qayb gali lahaa dhammaanba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xulkiisii in laga soo saaro marka ugu horeysa maamulka magaalada Jijjiga iyadoo dhammaanba deegaanka laga hirgelin doono orodka noocan oo kale ah oo goboladu ay ku sii xigi doonaan saaka waxaan halkan isugu nimidnay 20 xaafadoodba dhalinyaro laga soo kala xulay oo gaadhay 100 qof inay halkan ordi doonaan kadibna natiijadooda halkan ay ku ogaan doono waxaan aad ugu faraxsanahay tartankaygii oon koolinta koobaad baxay waxaan rajaynayaa insha Allah gobolada maadaama aan wada marayno inaan midho fiican ka keeno aan noqdo maxay ahayd kii dalkiisa deegaankiisa anfaca waxaan rajaynayaa guul waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama xaafadii aan ka socday aan kaalin muhiim ah u galay guul lagu soo hooyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaa waxaan rajaynayaa insha Allah heer caalami inaan gaadho waxaan kaloo rajaynayaa insha Allah inaan gobolada kale kaalmaha ugu fiican ugu wanaagsan u galo tartankan orodka xulka xulashada orodyahanada deegaanka oo ay ku tartameen 100 xubnood oo ka kala socday xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa laga qaatay 10kii xubnood ee ugu horeysay si ay ugu qayb galaan tartanka kama dambaysta ah ee ka dhici doona magaalada Jigjiga marka la soo qabto tartamada kale ee ka dhacaya gobolada deegaanka tartanka xiga ayaa waxa uu ka dhici doona maamulka magaalada Dhagaxbuur وهاجاك داوديال انت سيادان كي غدبنا qodobadii warkeen idinka inay deegaanka imikana aanu talawno qodobada warkeen idinka inoo dalka kuliyadda Afrika Beza ee dalka ayaa waxa ka qalin jabiyay arday ka badan 300 oo arday oo wax ka baranaysay kuliyadaasi faafahinta warkaasna waxa inoo haya wariye Mustafa Yusuf Africa Beza College ayaa waxa ka qalin jabisay arday tiradoodu dhan tahay 300 arday oo wax ka baranaysay kuliyadani iyadoo ardayda ka qalin jabisay kuliyadan ay barteen culunta isugu jirtay account iyo management waxayna ardaydan 54% ay ahaayeen gabdho waxaana 16 sano la soo dhaafay laamaha ay kuliyadani ku leedahay magaalooyinka Addis Ababa Hawaasa Shaashamane iyo Naqamta ka qalin jabiyay arday ay tiradoodu ka badan tahay 30,000 oo arday oo bartay culunta kala duwan ee ay kuliyadu bixiso waxa sidoo kale qalin jabisay ardayda wax ka baranaysay kuliyadda Queen's College oo ay ka qalin jabiyeen arday kor u dhaafaysa 650 arday oo bartay waxa kala duwan ee waxbarashada ay bixiso kuliyadani iyadoo qalin jabinta kuliyadan ay ahayd dufcadii 15aad ee ardayda wax ka baranaysay kuliyadani waxaana tan iyo intii la aasaasay kuliyadani ka aflaxay arday ka badan 11,000 oo arday oo bartay qaybaha kala duwan ee waxbarashada ay bixiso kuliyadu وهاجاك داوديال guud ahaan inta waxa inooga eeg warkii uu haatan idinku tala galay telefishinka caalamiga TV warkana waxa la socodsiinayay anigoo Cabdi Maxamed Cabdi aniga asxaabtii sideerka sareygal qayb qaadatay anagoo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa intaan warkan war lamida ku doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh